Cooking Channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabteeda kusoo dhawaada channelkeyga Nasra Carfaayo Cooking Channel. asxaabe haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow, haddii aad hore noola joogteen soo dhawow mar kaleento. asxaabe maanta waxaa sameysanaynaa amba muuqaalkeena uu ku saabsanaan doonaa insha Allah. waxaa karsan doonaa bocor, waa bocor cadde waa kana maanta videogeena bocor caddahan uu ku saabsanaan doonaa insha Allah. asxaabe bocorkan hadda isagoo saana aan kasoo iibiyey muxuu ahaa ii sheeg suuqa bakaaraha oo saan u jarjaran u hoolan qaabkaas uu jaran yahay waa lagu gadaa suuqa. haddii aad haysatidna kan karootada lagu hoolane waa ku hoolan kartaa asigana sidoo kaleento. marka insha Allah muuqaalkeena maanta bocorkan uu ku saabsanaan doonaa insha Allah. walaa bocorkan faa'iido badan uu leeyahay, waxaa kamid maskaxdu dejinaa, hurdaa laga helaa, caafimaad uu leeyahay. marka insha Allah hadda ani hadda casho fudud ka dhigan rabaa hadduu Ilaahay idmo. hadeertaani waa diyaarsaneena insha Allah, isla socod wanaagsan. meeshaan waxaa kusoo diyaarsaday digsiga dabka soo saartay. muxuu ahaa ii sheeg waxaa ku darsan doonaa hal qaando oo qaandadan yar ah oo blue band waaye ku darsan doonaa insha Allah. hal qaando laakiin isticmaala saliid macsara ku darsaraa. marka hal qaando bas waxaa la rabaa hadda caraf leh inuu iigu sameeyo insha Allah. waa dhalaalina bocorka ku shubanaa. marka bocorka waa soo dhaqay, si fiican oo soo dhaqay. sidoo kale meeshaan waxaa ku heystaa 2 koob oo caano ah. caanaha caadi gasaca ah soo qasay waaye, qiyaasta 2 koob waaye caanaha. hadeertaan waxaa ku darsanaa meeshaan waxaa ku heystaa 3 qaando oo sokor ah. sokorta caadiga ah waaye oo 3 qaando waa qiyaasta. sidoo kale meeshaan waxaa ku heystaa 3 qaando oo qaandada cuntada lagu cuno ah oo saliid macsar ah. sidoo kale waxaa ku darsan doonaa heelkan, waa soo tumaa mooyaha kusoo tumaa kadib waa ku darsanaa insha Allah. waata asxaabteeda heelka waa kaasa waa soo tumay waa ku darsanaa. heelka waxaa caraf oo isiinaa intaas la karaba, caraftaas la karaba insha Allah. hadeertaan waa daboolana ilaa iyo 30 daqiiqo camal. dabkana wuxuu ii geysan yahay dhexdhexaad, dabka aad ha u dheereenin. marka waxaa kusoo laabanaa 30 daqiiqo. asxaabteeda hadda bocorkii aa kusoo laabtay maasha Allah, waa ujeedaan soo u badbadooyo. hadday digsiga wuu buuxay bocorka, haddana waa ujeedaa wax yaroo noqde uu isku dhexdhacay. asxaabe bocorka waxaa isaga faa'iido caafimaad badan uu iska leeyahay. muxuu ahaa ii sheeg habeenkii saan camal uga casheeyo wallahi subaxdii aan ku dhahay ma kici kariya, hurdo caafimaad leh maasha Allah. videogan waxaa ka horeeya umaleynaa video kaleento. asxaabe bocorka isagana ka faa'iideysta. muxuu ahaa ii sheeg sida bataatiga uga faa'iideysteen. walaa commentiga gabdho badan ay igu soo qoreen wala qurux waaye bocorka oo caanaha ay ku karinaaye maasha Allah. marka hadeertaan asxaabe markuu gursada kusoo noqoneynaa. hadda wixii ka dambeeyay qaando dhan ma gelin doono sababtoo ay uu iga jajaaba, ma rabo inuu iga jajaabo. sidaanu ku gursanaa. markuu gursado kadib aan isku soo laabaneynaa insha Allah. waata asxaabteeda hadda waxaa kusoo laabtay bocorkii.
hadda woo biyi dhan woo qaleesmay waxaa sameynaa marka waxaa isku dayaa inaan gedgediyo oo oona iga jajabin marka qabtahaana soo qaatay saana oo gedinaa marka si qaybta hoos ii guduudata haddana kor ugu guduuto insha allah hadda waxaa sameynaa dabka waa u gaabinaa markii bariiska la huurinayo camal maaragtay camalaa ka dhiga aada u gaabinaa meesha ugu dambeysaa ka dhiga meesha ugu dambeysaa ka dhiga marka waxaa sameynaa waa daboola marka waa iska huuri insha allah tartiib baa usoo laabanaa adi waxaa huurinaa ilaa 10 daqiiqa camal 10 daqiiqa kadib baa kusoo laabanaa insha allah waata asxaabteeda waxaan arkoyaa bahalka waxaa rabaa bocorka inuu ii huuro oo muxuu ahay oo dhaho huuro marka inta meeshaan oo yarta oo baqsan dabool korkiisa ah waxaa kasoo buuxooya neefta marka ma rabo waxaa sameynaa warqadaa soo qaata yar amba tiish kadibna waa gelinaa marka soo gelinaa inay neef dhan kasoo baxda ma rabo inuu ii huuraa rabaa bocorka markuu saan iskiis u huuro aada u macaan badan yahay insha allah haddii markaas yeeti aad ku karsanaysid digsiyaashan oo kaleento meeshaaniiti sidaan uga cub amba ka xir meeshaan duleelka ah daas eed marka insha allah waa kusoo laabaneynaa marka waata asxaabteeda 10 daqiiqo woo dhammaystay muxuu ahaa ii sheeg diyaaruu ii yahay bocorkii maasha allah caraftiisa walaahi guriga dhan wuu isqabsaday markaasaa hadda diyaaruu ii yahay oo ii bislaaday oo ujeeda quruxdiisa hadda marka waxaa sameynaa dabka ka daminaa insha allah waa soo diyaarsaneynaa waata asxaabteeda bocorkeena markaa soo diyaarsanay sidaan quruxda badan oo nooga soo baxay oo ujeedaa guduudkiisa maasha allah ma aqaan hadda inaa arkaysaan in kale waxaa korka far iyo suul camal ugu soo shubay qorfo shiidan waaye soo caraf iyo sii sameeyay iyo decoration ahaan oo ugu soo shubay waa ujeedin guduudkiisa sidaas oo u qurux badan yahay ka faa'iideysta marka insha allah inta marka taqaano way taqaanaa inta kale intana ka faa'iideysta insha allah inta kulmi doono muuqaalka xiga inta haysanin allah siiyo anagana allah noo siyaadiyo inta ku kulmi doono muuqaalka xiga waa walaashiina Nasra Carfaayo idinkaga tagayso khayr iyo caafimaad bash iyo barwaaqo insha allah Nasra Carfaayo